إن وهي بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب يال اسكسو نقد وناكسن إن شاء الله وحان سيودينا هدو علي رادو كورس كيني ووردبريس كاها عشرة دي سي أن طبعا أن كشرحيني أن سفي عن أوفا فاهينيني qaabka loo isticmaalo website lagu sameeyo waxa inoogu dambeysay cashirkii sagaalaad oo ka hadlayay qaabka loogu shubo website qaabka loogu shubto page builderska iyo sida loo isticmaalo cashirkii sagaalaad wuxuu ahaa sida loogu shubo Elementor page builder iyo featureskiisu ka kooban yahay maanta insha Allah cashirkeeni 10aad aan galayna hadoo ala yiraahdo cashirka 10aad waxyaabaha aan ku qaadanayno waxa kamid ah marka ugu horeyso design your home page aan ku baranayna insha Allah sida home page loo diyaariyo waayo website walba waxa ugu muhiimsan home page waxa la dhahaa marka ugu horeysa oo URL ka la geliyo address barka oo browserka page ka soo muuqanaya home page ka soo marka home page wuxuu ka tarjumaa website kaado macna guud u bixina haduu home page kaado uu qurux badan yahay website kaadana ma sha Allah uu qurux badan fiican yahay haduu home page kaada liito ama design-kiisa uu kala kacsaneen waxay u badan tahay inuu website kaadana kala kacsaneen marka insha Allah waxaan dhisaynaa hadoo ala yiraahdo home page oo ay ka jar ah oo design-kiisa aad u qurux badan aan ku baranayna insha Allah sidoo kale waxaan arki doonaa hadoo ala yiraahdo waxaan arki doonaa how to add other plugins other useful plugins oo arkayna insha Allah inta page builder intaan page builder Elementor ku dhex jirno sida loo isticmaalo plugin kale sida loogu soo dardaro oo home page lagu qurxino waxyaabahaas oo dhan waan arkaynaa insha Allah waxa kale arki doonaa hadoo ay yiraahdo how to add different contents means page builder ka sida content kala duwan loogu daro sida image loogu daro sida waxyaabahaas oo dhan insha Allah cashirka 10aad aan ku baranayna cashirka 10aad waa design green.com waayahay mar kale isku soo noqod wanaagsan hadoo ay yiraahdo cashirkeen 10aad bilaabina maadaama aan local host aan isticmaalno oo wili aan gaarin free hosting free domain oo habada noo sarneen waan soo kicinayna insha Allah waxaan leenahay Zamba haduu wuxuu iyala taskbar ku iyala haduu san taskbar ku oolin dabcan meesha searchiga waxa ku qoreysaa Zamba markuu ku soo qabta taskbarka keenaysa amaana marka kana click ku kicina marka click dhaho Zamba han daara horta marka ugu horeyso markaan Zamba aan daaro kadib aan soo kacsana local hostigeyga Apache store aan dhahay MySQL Apache and start aan dhahay store noqday MySQL start aan soo marka Zamba waan dartay hadda waxaan u tagaa browser kan laana u tagaa waxaan qoraa local host oo kooda inuu gudaha soo aqriyo / meesha uu yaali I think waxaan u maleynaa gool tagisadaan ahaa meeshaas yaal marka intara leeyahay marka waxa sugaa inta isoo kacayo website keena aan sugaa soo marka si fiican aan fahmayna insha Allah sida home ka hadda waxaan marka hadda aan local host / gool tagida waxa hadda isoo kacayo waxa waaye waa home page ka waxa isoo kaca macna home page waa wax ugu horeysa soo muuqanaya cashirada bilowga hore aan ku soo baranay sida page home page loo dhigto marka maanta baranayna insha Allah sida home page loo design gareeyo hadoo ala yiraahdo waa kana hadda website ku inuu soo kacayo home page waa kana waa inuu soo kacay saacada waxaan ku qornaa kaliya waxa ku xusan footerkii aan ku soo sameeyay cashirka 8aad social media cashirka 8aad aan ku soo sameeyay waxyaabahaas oo ku qoran طبعا كويك لينك كان حتى دمسترينا ان شاء الله فوتركا marka horta cashirkan 10aad waxaan ku baranaynaa sida maxay ahayd
home page kala design garay marka hadda waa kana home page kana marka uu horeyso oo soo kacay page ka marka uu horeyso soo kacmaan marka waxaan rabaa inaan wax ka badbadalo aan gudihiisa galo marka wax ka badbadelayso WordPress ka ama aad gudihiisa galayso laba qaabood jirto ama ina dhahdo /wp-gtin-admin oo in badan ana isticmaalo ama ina dhahdid /login mid ku fududaa raacaysa insha Allah waxaan marka /wp-gtin-admin leedahay kadibna waxaan leenahay enter leenahay soo marka enter hadaan hadda wuxuu nageynaa shaashad oo u diyaar ah username iyo password in la soo geliyo nageynaa hadda marka redirect wada waan sugeynaa insha Allah intuu redirect ka wado waxaan moodaa xitaa menuyadan firtiis inay yar tahay waan balaarinayna insha Allah customize ka laga balaariyaa WordPress dashboard customize ka laga balaariyaa waa kana wana keenay marka waxaan gelinaynaa haduu ali yiraahdo username kin password kin gelinaynaa admin ku galno marka saas u gelino waxaan leenahay login leenahay kon username kon password ka marka ku soo shubinaysa isticmaalaysay marka waa kana hadda dashboardka gudaha waa u galay dashboardka sida loo qaab u yahay waxa uu kala cashirka labaad ku soo fahmin hadda mas'uuliyadda galay hadda cashirkeena tawanaada toos u galay marka inta right click leh visit site kadib waxaan leeyahay new tab aan leeyahay new tab waa kana markoo ii soo baxo oo new tab ka soo baxo kadib waxaan rabaa page builder kana wax ka qabto marka page builder waa Elementor waa marka waxaan leeyahay edit Elementor right click leh open new tab leeyahay Elementor ka ii soo baxay marka waa kana page builder ka doo ii soo baxay home ka marka waa design garana insha Allah meeshan waxa uu qoran welcome to Goldtiki inta waxa uu qoran discover more marka waxaan sameynaynaa insha Allah website iska caadi organization dhigeena ama waxaan dhigeynaa website maxay ahayd oo business aan ka dhigeena insha Allah advertising asas amal marka iska tirtireena kana iska tirtireena loo soo geliyo sawirkan loo soo geliyo cashirka tawanaada ku soo fahmin marka Elementor ka waa kana qaybtan inta waxa ku aruursan page builder ka waa basic ku aruursan waxyaabo Elementor ka ahaan u baahan yahay inta waxa ku jiro general marka waxyaabahan dhan sida loo isticmaalo insha Allah mid aan arki doonaa inta baro Elementor baro oo loo baahan yahay Elementor baro xitaa ku soo darsanayna insha Allah waxaan aadaynaa koraan aadaynaa waxaan soo qaadanaynaa inner section soo qaadanaynaa waxaan rabnaa in laba qayb noo kala baxaan marka inner section ka raadinaynaa weel kor oo soo bixinaa marka inner section marka drag da soo jiid left click oo qabo right click soo jiid bartanka keen meeshan ku dhaxday inner section ka waa kana marka waxaan rabnaa marka inaa text ama hadal yar aan dhigno waxaan leenahay heading kan oo kala soo qaadanaynaa soo jiidina inta dulkeenayna inner section ka ku basta garaynayna kadib inta h2y stilkiisa soo laabanayna waxaan ku qoranaynaa hadal oo waxaan ku qoranaynaa soo jiidash ama waxaan leenahay put yawa efforts where your business next tasagelina marka h2 ay ka weynayna h1 iga dhigaa leeyahay kadib stylkiisan tagaa stylkiis markii colorkan ka bedelaa colorka waxaan leeyahay cadaan aan leeyahay madow xogaa saamnon xuna cadaanka qurxan kadibna waxaan leeyahay typographic imaw inta waxaan ka bedelaa font size-keeda
weydka bold oo kale aad u weynaana leehaygan oo kale xoogaas oo kala siki karta siki intan taska ulaabanayna inta weer la gaarin xoogaha iyo soo sikinayna كمية هذا اسكو جين marka kadib steelka u laabanayna saaska xogan ku darayna kadib saaska markaas sidaan dhahno xogaa calaamadan yar oo kala qaybisa imaanayna wax xiran soo jiidaa say meesha fit ugu noqoto markaas abdheeda leeyahay mar walba wax ka bedel abdheeda leeyahay kadib setkaan ku laabanaa waxaan leeyahay refresh aan leeyahay kana sidaan ay noqotay qoraalka waxaa moodaa wax yar inuu ku qurxoon yahay dhinaca waay inta sawirka ah u dul saaran marka geeskana qoraalka soo marsiina insha Allah soo marsiina waan dul tagaa marka dul tago copy aan soo leeyahay meeshan kala dul tagaa waxaan leeyahay paste aan leeyahay inta marka iska dileedaa qoraalkayga soo xag ugu maro har marka kan soo weynaysanaa ahaado kadib waxaan leeyahay abdheedaan leeyahay haddaan ku laabanaa website-ka ku laabanaa refresh aan leeyahay qoraalka dhinaca noo ii maray but your efforts where your business needs waayahay qoraalka saana iskaaga dhaafaa waxaan rabaa marka inta inaa button yar inaa dul keeno laabanaa waxaan soo qaadanaa horta waxaan rabaa qoraalkan inaan kor u qaadaan rabaa waxaan sameynaa spacer soo qaadaa soo jiida daraaga leeyahay waa dulkeena waxaan rabaa inuu qoraal kor ii geeyo kadib spacerka koraan geynaa abdheedaan leeyahay dadaan tagaa refresh aan leeyahay waxaan rabaa inuu qoraalka maro mobile view na inta haddaan dhaho qoraalka sidaas soo maraa waayahay waxaa moodaa wax yar inuu aad kor ugu baxay marka soo yeelana spacerka inta camal ka dhigaa dheedaan leeyahay kadib waan ku laabanaa refresh aan leeyahay waayahay intaan way ugu filan tahay kadib waxaan kusoo darsanaa button kusoo darsanaa calaamadan elementarka intaan tagaa kadib button aan soo jiidaa markaasaas button ku keeno center dhexdii geeyaan leeyahay kadib small waayo large oo kale large marka waxaan ku qoraa leeyahay see our services sidaas aan leeyahay inta linkiga waaye meeshan kilkiya textiga kilkiyadaan ku bedelaa marka intana maadaama ay loogu talagalay linkiga soo laaban insha Allah waayo our service maba inoo diyaarsanaa umaleynaa inuu services kana rat kaliya leeda new tab sa linkigiisa soo qaato inuu banaanyahay ala kubiyan soo leeyahay linkiga oo laabanaa inta ku paste gareena soo link u noqdo our services kana waayahay wadanka steelkiisa galaa marka
okay background colorkiisa kale daan dhahno hoverkana backgroundkiisa waxaan ka dhigaynaa backgroundkiisa cadaan sida aan jeclaa waa fartiisana waxaan ka dhigaynaa madow aan fartiisana ka dhigaynaa kadibna over border type oo kale hadaan dhahno solid hadaan dhahno kala dhigto low ama siino overka colorkiisa ka dhigaynaa aad u qurux badan farta inaan ka dhigo midabkan si isku qaataan okay waxay dhiman intaan dhameeyay filan typography-ga maxaan ugu baahanahay saas kaga eegni okay update aan leenahay marka update markaan ku laabanayna refresh aan leenahay kana waa ina soo baxay mobile view gan waa kana waaya marka waxaan moodaa kan inuu hoostiisa u koran yahay marka space ka bixinaa soo hoostiisa ahaado asii sawirkiisa kaaban kan space ka bixiyay okay kadib waxaan leeyahay refresh aan leeyahay okay marka space intaan u dhaxaysiinaa soo kala sikiyo maxay footerka waa hadda waxa saaran footerkii waxa saaran iyo sawirka background-ka saaran marka xogaa waa kala sikinaa kan oo kale waxa leeyahay full width leeyahay full width markaan dhaho kan oo kale 10 waaye update aan leeyahay kadib waxaan ku laabanaa page-kayga refresh aan leeyahay okay hadda kana xogaa waan kala sikiyay setkiga waayahay waxaan rabaa marka aw service inaan intaan quraan ka soo bilaabo service okay kan waxaan moodaa inuu aad iga weynaaday marka waxaan leeyahay waan ku laabanaa waxaan leeyahay meeshaan edit screen edit section qoranta ku dhufanaa height ka waxaan leeyahay min ha ka dhig saa anigu u yaraado waxyar la isoo weynay marka iga badinin dan update dal fit to screen oo ah shaashada anu wada qaadina bartad xogaa la weynay waa kana sidaan oo noqday idibo waxyar ku soo daar bisla iyo tufaaxa gabadha madaxda saaran muuji waxaan qurux badnaadaan arnaa okay intaan inoogu filan tahay intaan kadib page-keena u laabanayna waxaan rabnaa inaan inta aan heading ku soo darsano waxaan sameeynaa meeshaan aan fureynaa
kadib headingka soo jiideynaa denina centerka aada leeyahay kadib qoraalka inta waxaan ku qoraa our services aan leeyahay stugis aada styleka farta waxaan ka dhigaa madow kale ka dhigaa typographiga size-ka sidaasaan ka dhigaa letter spacing-kana waxay kala u qaadinaa si qurux badanaato kadib waxaan keenaa divider yaraan keenaa kadib dividerka centerka keenaa leeyahay markaan soo yareena dhexda isku keenaa steelkiisaan ku laabanaa gaabkiisa waxaan leeyahay gaab maya weynaashadiisa waxyar weynee macna 5 camal okay save gareynaa fiirinaa marka isbedelka kana services xogaas qurux badanaado mid kalan soo qaadaa isla kan lee dividerka lee kana hooskeena kan hooskan sida hadda camal center aan leeyahay kisoo yareena saasay duukeena gaabkiisa gaab jiraan leeyahay كده عمل 1.5 ساعة ريت كيس واحد بالدار ريت كيس حاجة بالدار سيدكي عمل لي 1.5 كليك وحاول الجيدة مشان الجيدة وديسكا جست ساعة عمل له كي ستيل كيس لابنا وهاي سيرفيس الدان دهنا تايبوغرافيكا لين هاي قحة دايرينو كني okay deedaan leeyahay fiirinaa marka kana marka services sidaan loo noqday marka baadigan waxaan soo qurxinaa badanaa waxaan sameynaa midabkan oo maxay ahayd browser korkiisa saaran midabkaas aan qaadanaa GKB karkaan barnaamijkan soo kacsanaa marka soo kacsad kadib kiligan leeyahay meeshaan dugtaga waxaan leeyahay alt plus x copy aan soo leeyahay soo laabana kana dugtaga edit sectionka style leeyahay background kiisa waa bast ku leeyahay okay kana background kiisa bast ku leeyahay so bodyga noo qurxanaado okay sidaas kadib spacer kala soo qaada saxo kala soo kala sitaan soo qaada boxed waa full display leeyahay geesaha dhan wada geey
kadib stylekiisaan tagaa, kadib waxaan leeyahay background tab. Okay, kadib waxaan leeyahay update aan leeyahay. update markaa dhaw kadib sidkii ku laabanaa waxaan leeyahay refresh aan leeyahay. refresh markaa dhaw kan hadda service sida uu noqdo baadhigan kalarkaana qaatay build arkaan ku jirnaa. hadda waxaan soo gelinaynaa marka our service-ka mid mid aan soo gashanayna insha Allah. xalan column cusub furo, waxaan soo gashanaynaa 3 column ma soo gashanaynaa. edit section aan leenahay, style kan tageynaa, background-ka basta gareynaa. macnaha background tab kan meeshan wuxuu ka wada gradient color isgalaayo kale ka dhigsiisaas oo kale. san gradient maro kan video hadaart ina background ka video ka dhigto aan YouTube link oo kale inta kan ka dhigto slider. markaan intooda maro color ka ahaan ka rabaa kan oo ku dhaafaa. kadib hadin spacer aan soo qaadaa, spacer ku basta gareynaa, edit section ale kan full edit aan ka dhigaa, kan stylekiisaan tagaa, background kadib waxaan ku leeyahay bastin leeyahay, refresh aan leeyahay. website-ka ku laabanaa, isbedelka aan sameeyay soo fiirinaa. kana okay, marka hadda saddexdaana marka aan waxyaabo soo gashana insha Allah. waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan soo gashto icon, inaan soo gashan. waxaan raadinaa icon box qaybta generalka. icon box waa kana soo jiid inta dulgay. okay, icon box description keeda ma loo baahna, bracelet iska delete. inta waxaan ku qoraysaa service-ka saahan oo kale, farta small ka dhig, consulting leh. okay, double aan oo noqdo waan gashanaa. okay, consulting marka dhahdo kadib farta capitalka ku qorxan, capitalkiisa ka dhig consulting. okay, hadda update ahno oo website-keena booqano, icon-kaas consulting-ka noo saaran kana. marka waxaan meesha inaan icon aan geliyo, aan soo upload garay aan geliyaa rabaa. inta icon casting horta stylekiisa aan tagaa, fartan consulting-ka iska bedela oo hadda blue colorka waxaan ka dhigaa mid ku qurux badan, aan blue kale, cadaan oo kale, blue oo kale, blue tiq oo kale. okay, saas ku blue tiq dhaaf. waaya waxaan rabaa marka icon oo consulting-ka inaan soo geliyo oo inta ugu soo gala. macnaha iconada marka meesha laga helo oo rich resource oo icono badan laga helo waxaa flat icon, small aan leeyahay. waxaan leeyahay flat icon aan leeyahay, enter aan leeyahay, flaticon.com markana flat icon ka sii galaa. kadib icon waxaan raadinaa consulting kana ingil consulting. inta magac ku qoraa consulting, business consulting aan lahay. aan raadinaa marka iconkiisa. icono badan meeshan ka helo marka kana iconka kula fiicnaado, pop-up-kan iga xir, iconka kula fiicnaada gelinaysa qaadanayna insha Allah. flat icono badan ku xareysan. I think waxaan isleeyahay in icon kan oo kale fiican yahay. macna right click aan leenahay, download svg aan leenahay, free download aan leenahay.
marka saas soo degsan kadib elementor keena ku laabanayna meesha aan rabno inaan wax ka bedelno aan click siinayna markaas siinay kadib content yaa leenahay kadib waxaa leenahay icon library ku jiraan leeyahay bal wax ku jiraan waxyaabo badan ma aha aniga waxaan rabaa inaan waxyaabo badan soo gashto marka upload svg aan leeyahay kan enable aan leeyahay upload kiis marka aan soo jiidaa select files dhooya waxbaan drop wax dhigaa marka soo gal kadib insert media aan leeyahay okay marka soo gal kadib waan habeynaa marka isku color ka dhigaa iconka iyo textiga contentigiisa midabka ugu jira hexadecimal codekiisa soo qaada waxaan dul tagaa iconka dul tagaa primary color waxaan siinaa ku basta gareena isku midab si u noqdaan qurux badnaadaan size inta markaa keenana spacing waa keenaana isku soo dhawaadaan size markaa inta xogaa ka weynaa 9 sidaas oo kale dheh contentiga u laaweynayna viewga waxa ka bedelaa stag oo kale leeyahay stag markaan dhaho kadib styleka u laabanaa overka markii la dul geeyo secondary color ka waxaan leeyahay cadaan oo kale ha noqdo markii la dul geeyo normal kan tagaa primary color kan soo qaadanaa soo koobiyena kadib markaas soo koobiyeeyo tagaa kan primary colorkiisa ku basta galeena kan primary colorkiisa waxaan ka dhigaa cadaan secondary giisa waxaan ka dhigaa midabkaan ka dhigaa oo concept oo hor u yahay soo qurux waa kan hadda dul geeyo sidaas oo dul geeyo okay consultant hadda manoo diyaarsan marka linkiga waxaa iska siinaa hash iska siinaa soo calaamad linkiga soo baxdo kadib waxaan leeyahay update aan leeyahay update markaan dhaho kadib waxaan ku laabanaa website-keena ku laabanaa refresh aan leeyahay refresh markaan dhaho kana soo gashay majid iconka kana soo galay service marka intaana wada koobiyeyna waayo mid waa soo celina hadii dhaho time badan marka waxaan leeyahay icon box ka koobiyeyna koobiya leeyahay inta dul tagaa inta waxaan ku leeyahay basti dabadana inta dul tagaa waxaan leeyahay basti aan rabaa kadib markaas inaan soo baxsado inta marka soo celcelinahay waxaan leeyahay right kaligaan leeyahay waxaan leeyahay duplicate kadib space raw dhaxaysiina space soo jiido space dhex gasho kadib edit section leh full width ka dhig colorka u baahdi soo qaado copy value dheh edit section ku imaaw style ka dheh style ka markaan background tab classing kadibna intaan basta ku dheh هذا مركز أصلا سبيس لنا رواية أبدي ذالنا هذا مركز دين كلها ونو ريفرش عندنا كان سيرفيس كان سانا مخبي أو سيرفيس أو كمان سلطين حيوان ولون الحسن مركز بدلنا إن شاء الله قيب طلعت حن كديجينا ترينين كديجينا ترين مركز أنت icon ka arabna inaan wax ka bedelan dul tagana kaliyan siinayna kadib meeshaan waxaan ku qoraynaa train
training kasaan dhahno training icon kiisa waxa soo qaadanayna flat icon waxa soo qaadanayna training icon soo business consultant masaalan xalana training business training kana okaalan icon business training kana kadibna icon business training kana meeshaan marka icon kana ku badnaado ka dooranayna hada aliirahay icon kana la qurux badnaado kan hada coverage uu leeyahay kana kale leeyahay kana qaadana kana kaliya leenane download svg leenane free download aan premium lacag waay kulaabanayna upload svg giisa leenane upload svg upload files aan kadib soo jiidina macna gulgeynayna kadib xaalan insert xaalan update alena كان كل عوينينا حالنا refresh وكان أول نصوب دلي لغات training اوكي متك السدحات وحان ديه كرنا متك السدحات دان كليك سينو وحان ديه كرنا هذه كما لينين وكله لينين حرمنا لينك إنه تصقرعه أبديد علينا هني لينين تسقعنا لين أيكون كيسة اوكي لين أيكون كيسة سقعه أصلاً أيكون كانوا كلهم مسلس ليه داونلود نسودجي كنت بحاول هنا أبلود علينا هنا أبلود فايلز سقعنا هنا قصان لين ساسا مخرتين تأماننا انتو حندقنا personal my personal development team di dalam itu mengenai icon kisah surat ini personal development team halaman personal personal development halaman pintar terserah ini personal development halaman kan code iyo waxyaabo qoran icon u qamo personal development kan kala hada download svg deh free download kadib setkeena u laabanayna aan dul joognaa upload svg upload files siga soo jeedina insert media lana personal development kana انت حالنا proofreading علينا اي فلات ايكون كاولابنينا proofreading ايكون كيسالنا proofreading proofreading icon saas ahmaato erag kala qoraynayna xalanane reading leeda proofka iga dhaaf person reading leeda
okay icon ku habboon profile kan ka soo qaado download svg free download kadib laabanayna upload svg kadib upload files kan soo jeedna kadib waxaan insert media kadib waxaan update way iconka saddexaad u dambeeyo waxaan ka dhiganaynaa consulting training learning personal development proofreading okay kan waxaan ka dhigi karnaa marketing kan waxaa leenahay marka marketing marka dhahno update leenahay marketing iconkiisa inta kala raadinayna marka waxaan leenahay marketing definina iconkiisa lana inoo keeno way iconka marketing ka meeshan ku baxsanayna iconka marketing kan kale ama kan kale la safro kaliya download svg free download dib meterka ku laabanayna iconka upload svg lana marketing ka soo sartiyalena kadib update laabanayna refresh lana way marketing iconada waxaa laga yaabaa umaleysana labadan waa qaab dar camal noqon dib malaha iska sample insha Allah waayahay insha Allah qaybteena koowaad oo page home ka ku naqshadeynayna intaas oo keenayna hadda al yiraahdo qaybta labaad bilaabeen hadda al videoga hadda dhamaado qaybta koowaad intaas oo keenayna wixii su'aalo ah waxa uu soo diraysaa insha Allah emailka hadda al yiraahdo